milikiishi ayaan baranaynaa. Milikiishi waxaa weeye lahaansho wax adiga milkiyadaada ku jiro aad leedahay ayaan rabnaa inaan aragno. halkan sida aragtaan waxaan ku qoray dhowr erey waa 3 erey. kan waxaa la yidhahdaa angu. halkan waxbaa ka maqan ako ake. angu ako ake. angu waxaa iskale qof shaqsiga koowaad oo ficil sameeyaha ah. ako waxaa iskale shaqsiga labaad oo ficil sameeyaha ah. aken waxaa iskale shaqsiga saddexaad oo ficil sameeyaha ah. haddaba markii jamaca maadaama keli iyo jamaca soo baranay aanana jamaciisa isku bedelayaan. etu ay isku bedelaysaa meesha angu ahayd waxay isku bedelaysaa etu markii jamac la joogo waxaana iskale cc oo ah annaga. enu waxaa iskale nyinyi oo ah adinka. awo waxay isku bedelaysaa waa oo ah ayaga. soo marka intaas saas haddaa u fahamtay reasonka ama sababta ah meeshaan calaamada u geli waa qabyo. halkan xarfaha lagu buuxbuuxinayaa. soo xarfaha waxay ku xiran yihiin ingeli. ingeligana waa soo aragnay waa kooxaha waa kooxyo kala duwan oo magacyada sawaaxiliga ah ay u kala qaybsamaan oo lagu qaybqaybiyo waay. ilaa waxaan soo sheegnay 9 kooxood laakiin ilaa hadda waxaan barnay ilaa 3 kooxood. 3daas kooxood oo magacyada sawaaxiliga ah iyo sidii lahaanshaha u kala qaadanayaan ila arka. alright halkan waa ingeli waxaan kusoo barnay awa oo aan idhahnay waa koox lagu ururiyey magacyada dhammaan magacyada nooleyaasha sida bini'aadamka iyo xayawaanaadka ayaa kooxda lagu ururiyey. waa kooxda koowaad oo ingeliga ah. soo marka kooxdan waxaa lagu ururiyey dhammaan magacyada sawaaxiliga ah oo nooleyaasha leeyihiin oo bini'aadamka ugu horeeya. soo haddaba marka sidii lahaanshahan ugu isticmaali lahayn aan isla fiirino. halkan markaa kooxdan joogtid angu ay ahayd markaa aniga ka hadlayo wa ay noqon hadda marka wangu wako wake. marka dhammaan meeshaan waxaan ka hormariyey waa ujeedaa wa aan ka hormariyey sababtoo ah ingeligan ayaa waa la dhahaa. waadaas ayaa halkan saas kusoo galayso kooxda marka saas oo isticmaalina. intaa waa markay keli tahay. intaan waa markay ay keli tahay ayaan saa u isticmaalaynaa. laakiin markay jamacta sidaanay noqonaysaa. meeshii wangu ahayd weytay u bedelinaysaa. meeshii wako ahayd weynu. wake waaw waa jamci waa intaan tanna waa keli. soo marka halkan sawaaxili waxaa lagu dhaha umoja u lagu qoraynaa oo soo gaabinaynaa. halkan waxaa waaye wingi wa la qoraynaa oo soo gaabinaynaa. soo intaa waa keli iyo jamac waa ilaysaan. haddaba marka exampleka fiirino exampleka ama tusaalaha si loo isticmaalo groupkana weli joognaya kooxdan kamaana dhex bixin. mwalimu saa hore usoo aragnay waa macalin. waa qof xirfadiisa ka hadlaynaa qof bini'aadan iyo xirfadiisa. xirfadiisa waa macalimo macalinkii waaye. soo marka lahaanshaha isticmaalayna waxaan leenahay mwalimu wangu waa kasa ama waxaa dhigi kartaa mwalimu wako mwalimu wake. macalinkayga macalinkaaga macalinkeeda ama macalinkiisa. haddaba markii macalinkan uu keli yahay markay badan maxay noqonaya walimu. halkan waa mwalimu walimu oo ah hal macalin. markay badan yihiina waa limu waa 2 iyo wixii ka badan. soo marka maxay noqonaysaa lahaanshihii walimu wetu macalimiinta nada. walimu wenu macalimiintiina. walimu waaw macalimiintooda. sidaas ayay jamci isku bedelayaan. halkaana waa lahaanshiyo. mar walba waxaa xasuusanataa 3 qof ama 3 shaqsi aan soo barno ficil sameeyaasha ayaa sidaan lahaanshiyada u qaadanaya. qofka koowaad oo ficil sameeyaha lahaanshihiisa oo kaas. labaad saddexaad oo ficil sameeyaasha lahaanshiyahooda. jamci oo koowaad qofka shaqsiga koowaad oo ficil sameeyaha isagoo labaad iyo saddexaad oo jamaca. soo marka halkan waa ingeliga awa oo niri waa magacyada ama kooxdan waxaa lagu ururiyey magacyada nooleyaasha sida xayawaanka iyo sida bini'aadamka. halkan ayayna soo galaysaa. daartid mama baba waxaas dhan markaad dhigsid halkaana leeda mama wangu ama mama yangu labadaba isticmaali kartaa. soo marka sidaas u fahantaa rajeynaya. kooxdii kale aan soo barnay waxaa la yidhahdaa kv waa ingeligii waa ka hadlaya. halkan waa magacyada lagu ururiyey shayaasha markay keliyihiina kii ka bilaabanaya markii ay jamaciina v isu bedelaya. haddaba aragnas u qaadanaya iyaga. halka waa aragtaa maxaan ku qoray ca aa ka hormariyey ama ca c waaye. halka hadda xaraf ma lahaan c waaye. cidaana ka hormariyey waa kaasa 3 shaqsiba saas u qaadanaya. changu chako chake. sidaas markaa u qaadatay jamca maxay noqonayaan yetu v yenu v yao. jamci saas ay noqonaya. soo markuu ereyga uu yahay keli hebelkeyga waxaas saas u qaadanaya. markay jamc yihiin sidaas waaye. aragna marka tusaalaha kooxdan
kitaabu waa soo sheegnay waa buugan oo hadda wax ku qoraayo buuga markaa leeda buugay maxaa leedahay kitaabu changu chako chake buugayga buugaaga buugeeda ama buugiisa kitaabu maxaa dhahay kitaabu buug waaye yaa leh aniga changu waa leeyahay kitaabu changu marka adi ka hadlaayana chako marka qof kale saddexaad ka hadlaayana chake ama waa un qofkii saddexaad asaga iyo iyada waaye soo markay badan yihiin kiida muxuu isku bedelaa nira kitaaba v vitabu buugaag 2 iyo 3 iyo wixii ka badan changu maxay noqonaa niri vieto soo adi haddaa buugaag badan leedahay still meeshan viangu waa dhigi kartaa oo waxaa isticmaali kartaa v iyo yangu qasama vieto inaad tirahdid waxaa laga buugaag badan inaad leedahay waxaa leedahay vitabu viangu aa leedahay ani buugaagtayda haddii adiga qof kale iska hadlaysiin waxaa leedihiin vitabu vieto ani saaxiibtay waxaan leenahay buugaagteena macalinka u tagan waxaan leenahay macalin buugaagteena si vitabu vieto waa buugaagteena vitabu vieno waa buugaagtiina vitabu viao waa buugaagtooda buugaagteena buugaagtiina buugaagtooda soomaaliga sidaas waaye waxeena wixiina iyo waxooda waxeena aniga adi iyo koox ah waxeena wixiina adinka oo noor jooga alaabtiina iyo wixiina iyo kuwa naga maqan oo waxooda ah iyaga soo marka jamciina sidaas ayay kooxdaas ingeliga kv ayaa loo isticmaala lahaanshaha haddaba aragna ingeliga kale aan soo barna oo saddexaad oo la yidhahdo liya ama jima la dhahaa ayadana sidii loo isticmaala lahaanshaha iyada la aa ka hormarinaysaa xarafka aa ka hormarinaysa aangu waxaa waye la l waa weliba la maaha l aa ka hormarinaysaa maadaama shaqalka oo hadda aan ku darnay langu wixiga laaka waxaaga laake waxeeda markay jamca noqotan waxay noqone yeetu waxeena yeenu wixiina yaawo waxooda soo markaan aragno iyagana tusaalihii magaca okay halkan maxaa ku qoran gaari langu gaari waa baabuurtaa sheegnay langu gaarigeyga laako gaarigaaga laaka gaarigeeda ama gaarigiisa gaari langu gaarigeyga laako gaarigaada laakeena gaarigiisa ama gaarigeeda jamci muxuu noqonaa marka magaari gaarigan waxay noqonaya 2 gaari iyo wixii ka badan magaari yeetu halkan marka adiga keligaaba ahayd waxay isku bedeshay anaga soo adiga marka gaariyaal badan waa yeelan kartaa waxaa leedahay weli magaari yangu waa dhisaa marka gawaari badan leedahay 2 iyo 3 magaari yangu halkaas waxaa noo muujinaysaa adiga inaad leedahay baawur badan iyadan jamci u noqonaysa waxaa leedahay magaari yangu 2 iyo 3 baawur aa leedahay baawurteyda ama gawaarideyda laakiin ani iyo saaxiibtey oo min hal gaari leh waxaan leenahay magaari yeetu gawaarideena naloo dhaqo camal magaari yeetu yaawashwe ama magaari yeetu ani saaxiibtey gawaarideena baan ka hadlayaa magaari yeenu adinka gawaaridiina adinka ay hor joogo oo fiirsanayo gawaaridiina magaari yaawo iyaga gawaaridooda oo naga maqan iyaga gawaaridooda way naga maqan yihiin soo sidaas ayaa u isticmaalaysaa ingeliga saddexaad soo barano kii ugu dambeeyey oo hadda aan joogno marka ingeliga aan ka hadlayno kuwii kalena waa sii wadayna insha allah halkaana waxaynu sentence horna inaan ku fiirino number 1 huyu ni rafiki wangu yangu waa dhigi kartaa wangu waa dhigi kartaa rafiki wangu ama rafiki yangu labadaba isticmaali kartaa laakiin sidaas inaad u fahamtid waaye qaasata ardayda la hadlaya huyu ni rafiki wangu aa isticmaalaysaa maadaama rafiki uu soo galaayo ingeliya awa uu soo galaya kooxda koowaad oo magacyada nooleyaasha lagu soo ururiyey halkan marka huyu markaa leenahay waa this qof kan waay huyu waa this oo qof bili-aadan a u isticmaalaysid xasuusnoo ingeligan oo rafiki haddaa aragtid waa ingeliga awa magacyada nooleyaasha ayaana lagu xusay ama lagu soo ururiyey so marka huyu this ni rafiki wangu this is my friend waa english so huyu waa marka aad this oo u isticmaalaysa qof bili-aadan ah ishaaro waay magac ishaaro oo tilmaamaysid oo u isticmaalaysa qof bili-aadan ah halkaana waxaa waaye hiki ni kiti chake waa hiki asna waa ishaaro waxaa ishaaraysaa shay waxayna soo galaysaa ingeliga maadaama kiti meeshaan ku jiro kiti waa kursi ingeliga kv ay soo galaysaa waxaa leedahay hiki ni kiti chake kan this is her or his chair waay chake waxaa nira qofka shaqsiga saddexaad oo lahaanshaha aad isticmaalaysaa so this is his or her chair hiki ni kiti chake this oo shay loo isticmaala waa hiki oo weliba magacan ingeliya kv-ga ah u sameynayo halkan waa jamac haya markii la yidhaahdo kuwani waa these waa haya
these oo ah jamca waay waa lagu wareera badana ardaydeedana way ku wareeraan this oo keli ah iyo these oo jamca so haya waa these ni magari yetu kuwani waa gawaarideena magari waa soo sheegnay waa jamca gawaarida oo 2 iyo 3 wixii ka badana yetuna waa gawaarideena kuweena waa haddaba intaas hadaa fahamtay oo si fiican u fahamtay waxaan rabaa homework ku dirayaa oo ah soo qor dhammaan alaabta ama shayada aad leedahay in Kiswahili dhammaan waxyaabaha milkiiladaada ku jiro aad leedahay soo qor aniga waxaan qoraa qalinkan this waxaan leeyahay kalamu yangu kitabu changu waxa aan leeyahay ama adiga waxa adiga aad leedahay ii soo qor commentigan iigu soo qor adigoo isticmaalayo lahaanshiyaha aan soo baranay oo sidaan u qortay soo markaa